هل قرآن وحرم لوجو تلاقين لوجو ضيع ترى كتبت قرآن كريم كبرشة ده كل ده ضيعنتها هذا هو المعمل ها دسمها لوجو تلاقين لوجو ضيع ترى كتبت قرآن كريم كهذا دسمه كوكسر ده قلبت كما قال ده بورما يا واحد بوقضي برساب قبل كاود الحلبانة كترسم برلمان كسومالي لان المودين مسؤولين كله مهمة أوتك مسؤولين تنايا دار الناس اللي لو درجلين لها دسمها حرمت ضيعتها كتبت قرآن كريم كهذا مرة يسمى وناكسن قدوميها قبل كاود المدن محمد أحمد عالن تيم برو اللي ما شاء عمد كعادي علم ودين كروال كاسك هذا شيء برشة وحوسه جديا إن لقى قيب قاتو حرمتني لو قلت لك لا إن لو ضيعتها كتبت قرآن كريم maalintii la bilaabay maanta halkay xaruntu marayso ay keentana markaa runtii ay kaliftay in la dhiso xaruntan markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa Qur'aanka Kariimka la arkay isagoo markaa waxa weeyaan saaqaabka inoo muuqata hadda kadibna markaa aanu go'aansanay in la dayactiro kutubtii loona dayactiray markaa waxa weeyaan nidaam qaabkan la arkaysaan hadda ay waxa weeyaan u dayactiran yahay Ilaahay mahadi kadibna la go'aansaday in loo dhiso xarun lagu dayactiro oo la keeno markaa waxa weeyaan qalab casri ah oo lagu dhameystiro dayactirka kitaabka Qur'aanka Kariimka way hadda gacantaanu ku sameeynaa laakiin hadda insha Allah ta'ala wixii ka dambeeya markuu dhismo dhamaado waxaan rajaynaynaa inaanu keeno ijiina casri ah oo lagu dayactiro kitaabka Qur'aanka Kariimka waxaana ka kooban tahay 7 howl bay ka kooban tahay oo markaa waxa weeyaan dhameystiran marka insha Allah waxaanu leenahay dadweynaha sharafta leh in laga soo wada qayb qaato inta dhisan waxaan uga mahad celinaynaa wadana masaajidada soo mariyay ama toos baa u keenay baa iyana jira waan ugu mahadnaqaynaa waxaan ku leenahay Ilaahay maanta qiyaamaha ee aan xoolayo bad midna anfacaynin inta yarayno halka gasanatiin nafada Allah inooga yeelo idinkana Allah idinka yeelo inta inoo hadhayna insha Allah waxaan rajaynayaa si dhaqso ah inay noo soo gaarsiiyaan wixii aanu ka codsanay talisom som cable amal dahabshiil intaba waraaqo weyn noogu maqan yihiin waanu ka sugaynaa insha Allah inay si degdeg ah jawaab sugan noo soo siiyaan lambarada halka ku qoran dadku ma ahayn inta waxaysata qofku wuxuu iska soo jari karo lambarada halka ku qoranna ama idaaf ha noqdo ama saad ha noqdo ama dahabshiil baan ha noqdo ama Dar es Salaam baan ha noqdo qofkii muxsine si sirriyan wixiisa uu dhiibanaya halkaas uu ku soo shubi karaa waxaan halkan fariin u naga dirayaa dhammaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka soo qayb qaataan mashruuca gabagabeyntiisa iyo dhameystirkiisa meesha fiican maraya ku hantiila iyo midaan hantiila ahaynba waayo sadaqadu yaryaraysi ma laha لا تحقرن من المعروف شيئا هذه 10 كنو قف او من $1 دير له هلو wuxuun bay qabanaysaa labada dhanba ha loo kaalmeeyo hal isgarab taago ilaahay inuu ka barnaa si degdeg ah in faraha looga qaado taasi oo maanta arkano ma sha Allah in la dabooliyo dhammaan intay ka koobnayd أن يجزي جميع المحسنين من شركات أو أشخاص أو كل من أسهم في هذا المشروع المبارك أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يبارك له في ماله وولده وفي عمره ويجعل هذه الصدقة الجارية التي يقدمها تعظيما لكتاب الله يجعلها بركة عليه في دنياه وأخرى. أنت أسكت حلبانة كسر كلها برلمان كسومالنا يا وحي بوغدن حرمت حل كان لو ضيعترا كتبت القرآن الكريم كوكوتا لما قال دبورما معرفتهم بما فيها فكان هذا المركز المبارك يقوم على هذا العمل الذي هو يعتبر من الواجبات على المسلمين جميعا فهو يقوم بإسقاط الواجب عن الباقين بالتصدي لهذا الأمر وهذا المشروع بجمع هذه المصاحف. وعمران حسين آدن ورك تلفزيون كعالمي هون كيبل تي في بورما.